بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردد قيمة كان كسلامية إن شاء الله maanta waxaan qaadan doonaa markaa cashirkeenii waxaan soo gudageli doonaa markaa cashirka pediatriga growth and development marka waxaan eegaynaa koritaanka uu sameynayo waxa loo yaqaano ilmaha yar jir ahaan iyo maskax ahaan markaa iyo weli waxaa inoo sii raacsan assessment of markaa nutritional iyo qofkii sidii loo qiimeyn lahaa xaaladiisa loo qiyaasi lahaa markaasi inuu ilmahan nafaqa darro ku sugan yahay inuu ilmahan marka waxa loo yaqaano waqtigiisa oo dhan hadday tahay jir ahaan iyo maskax ahaan iyo markaa gebi ahaanba ilmihii ayaynu eegi doonaa insha allah. waxa growthka loo yaqaano growth is an increase in size. growth waxaa weeye inuu qofka uu u koro xagga markaa jir ahaan markaa xagga size-ka inuu balcaan u koro organism markaa qofki marka noolihii inuu u koreeyo markaa anatomically hadda jeer waxaa loo kala saaraa growth waxaa la yidhaha anatomical oo structural halka development-ga la yidhaha waa physiological. marka growth waxaa is increase markaa koritaanka in size of organism due to increase in size. marka waa koritaanka uu sameynayo qofka noolaha ah markaa jir ahaan increase number of its constituent cells waxaa kordhayo unugyada ayaa waxyaalihii ay ka koobnay iyo tir ahaanba ayay u korayaan markaa ama ha noqoto hyperplasia cellka laba qaab buu u koraa hypertrophy inuu sameeyo oo u weynaado oo cell size-ka u weynaado ama cell number buu u weynaado hyperplasia sa kusoo qaatay markaa physiologigaba marka qofka inuu jir ahaan ama xagga ballacay qofkii inuu u koro markaa structural marka inaga waxaan oran karnaa inuu qofka structural uu u koro markaa anatomically. development waxa is maturation of function inuu qofka shaqo ahaan unugyadii ama organadii jirka ay u qaangaaraan an acquisition of skills inay xifrad markaas qofkii uu heli karayo marka tan inta badan developmentalkan weli xagga waxa physiological marka lana xagga brain functionka xagga shaqada maskaxda ayaynu xoog ku siisanaa ilmihi yaraa inuu caqligiisii garaadkiisii waxyaalaha uu kala garanayay iyo waxyaalaha la midka ah. stages of growth and development heerarka uu maro markaa growth and development-ga ilaa waxaa lagu qiyaasaa markaa dhowr marxaladood ayaynu eegi doonaa inagoo laba markaa kusoo koobi intrauterine stage iyo extrauterine ilmaha intuu ku jira markaa uurkii haweeney markaa intuu makaankii uu ku jira 3 marxaladood ayuu maraa intra markaa waa within uterine markaa uteruska markaa stage marxaladdu ilmihiira ama qofkii uu ku jiro waxaa loo yaqaan uur ku jirta ama makaankii waay embryonic period baa u naqaanaa waa marxaladda koowaad qofka embryo uu yahay markaa ama embryology kusoo dhigateen waa 12 isbuuc oo hore ama wuxuu naqaanaa first trimesterka ugu horeeya first trimesterka koowaad markaa waa first 12 weeks of gestation waa 12 isbuuc oo hore ee qofka ilmaha yar oo uurka uu ku jiro. xilligaas haddaba maxaa dhaco xilligaas waxaa dhaca defator for organogenesis xilliga waxaa xoog aad loo saaraa la isku taxloojiro organogenesis inay organada samaysmaan inay organiska waa maxay ay samaysmaan. by end of this phase marka phase-kan ama marxaladan ama wejigani marka uu dhammaado first trimesterka ilmaha yar marka uu dhammaado embryaha weydki marka ilmaha uurjiifka marka embryahaas weydkiisa ama waa miisaankiisa waa intee markaa waa 9 gram waxaa laga doonaya inuu hada 9 gram marka embryology-ga markaan dhigana ama embryonic period ilmaha yar marka ku jiro 12 isbuuc hore ilmahaas haddii la miisaamo waa inuu 9 gram u noqdaa xagga dheerarkiisana waxaa weeye 5 centimeter in length xagga dheerarkana waxaa weeye 5 centimeter waa noqdaa. xilligan waxyaalaha ilmaha yar laga ilaalinayo oo halista gelin karo waxaa ka mid markaa teratogenic effects marka dawooyinka ama waxyaalaha sababi karayo ilmihi yar inuu malformations ku dhaco markaa inuu ilmihi si qaldan u sameysmo ama noloshiisa inay halka ay ku istaagto. in this period may lead to waxay keeni kartaa abortion haddii markaa ilmihii dawooyin la siiyo dawooyinka hooyinka waxaa u naqaanaa la siiyo pregnancy safe drugs marka dawooyinka safe drugs maxaa leena waa dawooyinka aan ilmaha yar waxba yeeli karin haddii kuwa wax yeeli karaya tetracycline oo kaleeto ada antibioticska badankood
oo haddii qofka yaraa la siiyo ama dawooyinka anticonvulsant drugs kale haddii hooyadii qalasho kale haddii hooyadii psychosis dawooyinka kale marka dawooyinka noocyada qaarkood waxay keeni karaan teratogenic agents markaa in ilmihi yaraa si qaldan u sameysmo haddii dhowr malformation ilmihi yaraa iskugu dhaco wuxuu ku dhici karaa abortion inuu ilmihii uu soo qabto marka ilmihii inuu soo qabto marka ilmihii uu kasoo dhaco marka hooyada marka abortion waxuu naqaanaa wixii 20 isbuuc ka yar wixii ka weer ama 12 weekska wixii iyo ka sii yar waxay naqaa abortion or congenital anomalies ilmihi yaraa waxaa laga yaabaa inuu malformation uu ku dhasho markaasi inuu ku yimaado way xilligan oo kaleeto xataa hooyada waxaa risk ugu jirta wax loo yaqaan spinal feeder congenital anomalies oo kaleeto qaarkood ugu jirta wax ka mid spinal feeder oo kaleeto waxay u naqaan haddii hooyada folic acid deficiency kale ka maqan tahay ama xilligaasi uu jisan jirin in ilmihi yaraa markaa dhabarka oo kaleeto uu duleelo markaa spinal feeder waan arki doonaa dhowr nooc waa loo qaybiyaa marka marna waa open marna waa closed taa closed waxaa u naqaanaa occult spinal feeder okay stage kale waxaan naqaanaa early fetal period waa second trimester waa trimesterka labaad markaa waa 12 to 28 weeks waa 12 isbuuc ilaa 28 isbuuc waxaan naqaanaa waa second trimester waa rapid growth mainly in life xilligan ilmihii si degdeg buu u koraa weliba qaas ahaan si weyn wuxuu u koraa xagga dheerarka marka la barbar dhigo laisla eego xagga miisaanka iyo xagga miisaanka ama culayska ama xagga dheerarka markaan eegayna ilmihi yaraa hadda wuxuu si degdeg aad u koraa xagga dheerarka trimesterka labaad ilmaha muxuu u koraa xagga dheerarka markaa fetus is verifiable ilmihi yaraa si fiican uma wada muuqanaya hadda at the end of this period marxaladani markay stagekan ay ku jirna second trimesterka marka uu u dhammaadka uu ku jiro ilmihi yaraa length xagga dheerarkiisa waxaa weeye marka uu yahay 35 centimeter weeye dheerarkiisa ilmihi yaraa waa maxay waa 35 centimeter wuxuu kaaga yimid 9 waxa loo yaqaan 5 centimeter waxaa ku kordha 30 hadhow ilmaha markuu dhalanay dheerarkiisa waxaan ka doonayaa 50 centimeter inuu ahaado 50 centimeter baan ka doonaynaa haddaba u eego imisa marka ayada 50 ugu dhimo 15 marka ka dhexe waxaad aragtaa waxaa ku kordha 30 kan 5 buu ahaa kana waa 15 kan la kuwa 30 marka sababtaas aan leenahay ilmaha dheerarka ayuu aad iyo aad ugu koraa second trimester ka maxay ilmaha yar xagga dheerarku aad u kordha weydkiisa markaan eegayno waa 1 kilo waa 1 kg xagga miisaanka markaan ilmaha yar eegayno waa 1 kg miisaanka ilmaha yar markaan eegayno waa maxay waa 1 kilo okay hadii xagga noo soo noqono third trimester marxaladda saddexaad waa 28 isbuuc ilaa iyo 40 isbuuc ayaa waxaa loo yaqaanaa third trimester marka 28 isbuuc laga soo bilaabo ilaa iyo 40 rapid growth mainly in weight xilligan miisaanka iyo xagga miisaanka iyo ilmaha ka kordha xagga miisaanka waxay doonaynaa inuu ilmaha yar ku dhasho normally 3.5 ilaa 3.33 halkaas marka wuxuu ahaa halkan 1 kilo xilligan waxaa ku kordhay 2 kg iyo ka badan 2 kg iyo ka badan marka ilmaha third trimester wuxuu kordhaa xagga miisaanka xagga wuxuu kordhaa maxay xagga miisaanka fetus is viable ilmihi hadda caadiba u muuqanaya waa la arki karaya labada heerba second trimesterka iyo third trimesterka waxay u nugul yihiin teratogenic agents marka dawooyinka waxa loo yaqaan radiationska waxyaalaha la midka dhanba oo ilmaha yar wax yeeli karaya in fetal period may lead to waxay ku keeni kartaa death ilmihi yar inuu dhinto still path inuu ilmihi yar haddii ilmaha 20 isbuuc xagan ka xigo oo ilmihi yar ilaa iyo waxa loo yaqaan intuu ka dhalanaya haddii uu dhinto waxay naqaanaa markaas still path marka waa 20 weeks from to birth ilmihi yar haddii ilmeed ku dhashay laakiin ilmaha yar oo muuqanay weyn u yahay premature delivery ilmihi yar wuxuu isagoo waqtigiisi gaarin premature delivery markaan leenahay waa xagga gestational age waa xagga da'da haddii ilmihi yar isagoo waqtigiisa sidkiisa aan u dhameen inuu dhasho ayaa dhici karta ama intrauterine growth retardation ama ilmihi yar inuu xagga uurkiisa ku jiro miisaankii inuu heli waayo xagga miisaanka waa maxay inuu heli waayo miisaankiisa uu yaraado markaa inuu miisaankiisa uu yaraado xagga uurka markaa uu ku hagaaso waan ka soo sheekay intrauterine growth retardation ka la jirkeeni koowaad iyo waxyaalaha keeni kara sida placentada oo kaleeto hooyada hadda hypertension leedahay waan ka fikir karnaa sababtoo dhiig blood flow imanaya placentada ee ka imanaya waxa loo yaqaano ilmihi uu imanaya ayaa yaraan karayo marka
وحالة مركا حاجة بلاسنتر كي circulation كي مركا كوريكس هاي هدينا فقط رنا في كذا هاي سوق لمد extraterine stage كا وحي كبحسن مركا waxa loo yaqaano dibadii ka ah marka xagga caloosha ama uurka ama xagga makaanka kan waa ilmihi markuu dhashay ilmaha markuu soo dhashay neonatal baan oranayna waa first 4 weeks ka ugu horeeya 4 isbuuc ugu horeeya 8 casho ugu horeeya ilmaha waxa loo yaqaana neonatal marka 8 isbuuc ugu horeeya infancy waxaan qaybinaa laba early infancy up to 1 year waxa weeye sanadka koowaad weeye iyo late infancy ilaa iyo sanadka labaad ah childhood ka waxaan qanaa 2 sano ilaa 5 sano late childhood ka waxaan qanaa 6 sano ilaa iyo 12 sano adolescence waa 12 ilaa iyo 15 laakiin bugtina qaar waxay noo qortay 18 ilaa iyo wax loo yaqaan qaar 22 waa in adolescence waa ilmu intuu qofka koritaankiisa uu ka istaagay koritaankiisa waa maxay waa intuu ka iska istaagay aan u naqaan adolescence okay ilmaha wuxuu kori karayaa wax loo yaqaan cephalocaudal direction inuu madaxa uu ka soo koro oo caqliga iyo wuxuu soo caqlaystay ilaa iyo wax loo yaqaan ilaa iyo lugaha cephalo waa head caudal waa toe marka head to toe inuu koro marka marna waxa proximodistal direction inuu ilmihi darafyada dhinacyada uu koro marka xagan gudu ka soo kordhaya wuxuu koreeyaa marka dhinacyada ballaaci general to specific ilmaha markii aan eegan wax kasta guud ahaan uu iska qabsanay wax marka dambe ilaa wixii specific u qaasaan wax uu aqoonsado marka waxa dhamaan wixii ahaan guud ahaan iskugu sinaayo isku midba u ahaa waxa labada gacmood wax wada ku soo wada qabto marka dambe hal gacan buu wax ku qaban karaa wixii marka ayada si guud u dhow sawirkii waxa la mid taban ku arki doonaa okay ka koowaad soo qaadana cephalocaudal direction ku xawee the process of cephalocaudal direction ka markaan eegana habkaas waa from the hip down to tail marka ilmihi xagga wuxuu ka soo koreeyaa wax loo yaqaan xagga madaxa ilaa iyo xagga hoose isagoo marka iyada uu soo koreeyaa marka this means that improvement is in structure tan macnaheedu waxa weeye qofku wuxuu koritaanka u sameeyaa xagga qaab dhismeedka structural xagga qaab dhismeedka and function ay xagga shaqada came fast in the heat region xagga marka dhisma ahaan structural iyo shaqo ahaanba labada waxay ka yimaadaan xagga madaxa ka yimaadaan qofku ilmaha qaar waxa la yiraahdaa madaxweynaha qofka madaxweynuhu caqli badan oo kaleeto marka labadaba shaqo ahaan iyo marka ay dhisma ahaanba jir ahaanba waxay ka yimaadaan ilmaha xagga madaxa heat region then in the trunk xagga sakarka last in the leg region ka waxay soo gaaraan wax loo yaqaano marka lagu tusaale waxa aragtaa ilmihiran waxa qabsan karaya inuu caqligu xilli hadhow socodka keeba soo horeeya iyo waxa loo yaqaan inuu ilmihi wax kala garto ilmihi waxyaalo badan soo kala garaya wax yaraa hadli karaya waxyaalo badan ooyi karaya farxi karaya ayuu dhow ilmihiran marka dambe uu socdaa proximodistal ka markaan eegayno waa from the center or midline wuxuu ka bilowdaa waxa proximo markaan leenahay distal waa xagga dhex marka center ama midline ayuu ilmihiran ka koreeyaa wuxuu koreeyaa wax loo yaqaan darafyada distalka waa dibadda xigo proximal waa wixii gudaha ah marka ilmihiran guduhu ka koreeyaa wuxuu koreeyaa wax loo yaqaan dhinacyada dibadda okay two peripheral directions wuxuu ilmihiran ka koreeyaa xagga dhexda centerka to peripheral waa dibadda marka directions development proceeds from the near to far wuxuu ka koreeyaa wax loo yaqaan xagga gudaha u dhow ilaa xagga dibadda outward from the central hadii ay u dhigana si kala tahay access of the body towards the extremities marka dhammaan waxaan dhowr tilmaamo waxa access kan waxa la waa xagga dhexda centralka oo dhexda xagga midline wuxuu koreeyaa wax loo yaqaano outward waa dibadda peripheral waa dibadda waxa loo yaqaan general to specific children use their cognitive marka carruurta waxay isticmaalaan garaadkooda and language skills to reason and solve problem ilmaha inta badan waxay isticmaalaan xagga garaadka caqliga waxayna inta badan samaystaan marka luqad xifrad ah taasoo inta badan ay wax ku sababeyn karaan ama ku xallin karayaan dhibaatadooda ilmihi waxa laga qaaday uu ooyaya wixii waa lagu soo celinaya oo aamusaya markaas taas waxa waa hab wixii inuu diidan yahay oo kugu muujinay ama kugu tusin karay children at first are able to hold their big things carruurta marka ugu horeysa waxay awood u leeyihiin inay qaadaan waxyaalo waaweyn by using oo isticmaalaya both hand arms labada gacmood waxbay soo qabanayaan labada gacmood waxay ku qaadeen carruurtii in the next part able to hold things in a single hand marka ilmihi yara koro wuxuu awoodi karayaa inuu wixii hal gacan ku qaadi karaya uu tijaabinaya then only able to pick small objects like peas marka dambe waxaa laga yaabaa inuu uu awoodi karayo waxyaalo yar yar oo dadka sida digirta oo kaleeto
sida waxa loo yaqaano xaruurka oo kaleeto waxyaala yaryar oo dhul ku daatay ishooda qabanaysa inuu soo qaban karayo soo geli karay children when able to hold a pencil carruurta qaarkood xilliga waxbarashada kale markay bilaabaan waxay qabsan kareen markaa pencilkii ama waxa uu naqaan qaran qorigii first starts draw cycles marka hore waxay wadaan inay sawiraan waxa wareeg then square marka kadib afar gees then only letters after that the words kadib marka waxa laga eraya inay qoran kadibna markaas jumlad inay qori karayaan developmental process from general to specific xagga koritaanka marka maskaxda eegayna wixii carruurta waa from general wixii labada gacmoodba kusoo qabanaya wixii ma garanay marka dambe waa kan ilmihii toler noqday ama preschool ama school age noqday oo wuxuu hadda toos u sawiri karaya this wuxuu aqoonsan karaa in loo yaqaano okay factors affecting growth waa maxay factorska ama shayaadka saameeya koritaanka markaan eegayna ilmaha koritaankiisa maxaa saameeya ilmaha koritaankiisa waxay ka soo bilaabaa factors before conception intuusan ilmaha uurkaba gelinba oo uurba ilmihii uurkaba u gelin waxyaala saameyn karaya racialka ka mid ah xagga midabka ayaa ka mid markaa dadka caddaanka dadka madowga qaar waxaa la yidhaha waa Nigerian waxyaala noocaas ayaa la yidhaha qayb ayuu ka mid yahay markaas oo xagga Chinese-ka kale qof Chinese qof Nigerian soo istaagaan labada maxay ka fikiri karnaa markaas marka from racial ka soo qaarna waa familial xagga qoys ahaan waa hereditary oo qoyskaas waxa laga yaabaa qoys inay yihiin marka dhaadheer oo kale waxa loo yaqaano qoys waxa laga yaabaa laf leh oo kale inay yihiin qoys waxa laga yaabaa hilib leh inay yihiin oo kale qoys waxa laga yaabaa marka natural iska gaaban yihiin oo kale inay iska hilib yar yihiin oo kale marka waxa la yiraahdaa qaar familial waxay ku xiran yihiin xagga qoyska qaarna waa constitutional baa la yiraahdaa labadan oo isu tagay ayay ka iman karaan okay talabaad taas waxaan niri waa factors waa shayaad saameyn karayo ka horeeya marka intaas oo ilmihii uurba gelinba oo sababta marka dadka qaarkood doorashada oo kale xilliga aan oran karno marka okay maternal factors waxa la qaar waxay ku xiran tahay xagga hooyada during conception inta lagu guda jiro markaas hooyada ay uur qaado include waxa kana maternal disease hooyada xanuunada qaar ay qabto oo kale medications daawooyinka qaar ay qaadatay nutritional status xaaladda nafaqo hooyada marka waxyaalaha qaar hooyada ku xiran marxaladda saddexaad waxay after birth marka ilmihii markuu dhashay kadib ay haddana garay waxyaalaha saameyn karaya waxyaalaha waxaa ka mid xagga age-ka da'da growth rate is more during infants and adolescence koritaanka ilmaha wuxuu aad iyo aad u degdegaa oo u fiican yahay ilmaha intuusan sanadka gaarin iyo sidaan soo sheegnay iyo adolescence marka labada marxaladood ayuu ilmaha koritaankooda aad u fiican yahay xagga sex-ka markaan eegayna male to female inanka markaan eegayna xagga koritaankooda ka warrama keebaa yar horweynaada u malaynaysaa marxaladaha qaar markay saa u dhashaan inanka iyo inanta markaan eegayno waxaa weyn inanta atbaaf markay dhashaan waxaa weyn waa xagga inanta ayaa weyn okay 4 sano markay gaaraan they are equal 4 sano ilaa iyo 10 sano inta laga gaaray way isla egyihiin marka la gaaro 11 jir ilaa 14 sano inanta haddana weyn 14 jir wixii ka marka laga bilaabo ilaa wixii xaga ka xigay inanka ayaa weynaada marka hadaan isla joogno su'aal baan isweydiinayna waa maxay 14 jir wixii ka dambeeyay inanta maxaa hadda marka hore inanka ka weynayd maxaa hadda marka iyada hadda dib u dhigay koritaankeeda okay waad soo baari doontaan laakiin mid ka mid baan idin sheegaya 14 jir marka laga yimaado ilmi hormoneska xagga hormoneska ayaa inanta waxay keenayaan inuu yara hagaasiyo oo ilmi inanta hadday qaangaarkeedii uu soo yar dhamaystir xilligaasi waxaa laga yaabaa inay marka koritaankeeda inuu hagaaso ama ku dhaco halka ilmihii adolescence-ga inanka dhalinyarada la ku jiro uu markii koritaan fiican isaga adolescence-gii uu ka faa'iideysanay laakiin halka inantii kama faa'iideysan karto waxaa weeye hormoneskeedii ayaa isbedel ku dhacaya kadibna inantii jir ahaan iyo marka iyada physical appearance kadib waxay qaangaarnimadii oo dhan baa kusoo degdegaysa statuska xagga xaaladda caafimaad nutritional and psychological nafaqada ay ku xirantay ilmaha yar qofka nafaqada u haysta iyo psychological ilmaha yar haddii uu cuqdad nafsi uu haysto stress dhibaatooyin ay haystaan isna ma kori karaya okay ta'afraad waxay soo sheegnay waa conception-kii before conception maternal factor kan soo sheegnay iyo waxa loo yaqaan age waxa loo yaqaan after birth ka afraad waxa weeye hormonal
role marka doorka hormoonada ama dheecaanada jirka Sudan growth is controlled by hormones depending on the stage inta badan growth waxa control ama xakameeyo ama uu ku xiran yahay waxa loo yaqaan hormoono intrauterine markuu ilmaha ku jiro waxa controlkan leh ama ka qayb qaato kareenin waxa loo yaqaan ama la yiraahdo chorionic gonadotropins kiiba kamid ah placenta lactogen kiiba kamid ah insulin iyo thyroxine marka hormoniskan ayaa ka qayb qaata infancy and childhood waxa ka qayb qaata thyroxine marka T3 T4 ki growth hormones ki adolescence waxa ka qaata sex hormones ki estrogen and androgens marka these hormones kan ayaa qayb lixaad ka qaato marka koritaanka ilmaha patterns of growth qaabka uu qofka ama noocyada uu koritaanka uu qofka uu maro hadaan eegno waxaan niraan wax loo yaqaano waxa weeye waxa loo yaqaano wuxuu sameeyo waa general guud ahaan koritaanka uu qofka uu sameeyo waxa weeye growth of bones qofka inuu lafiyo uu ka koro muscles muruqyada iyo soft tissue marka waxa loo yaqaan ama wax loo yaqaano marka tissue ama maqaarkan kan sare ee jilicsan marka ama marka fatis kaba okay genital ay ilmihiira ka kori karaya growth of genital organs waxa koraya marka genital organadii ayaa koraya waxa loo yaqaan marka peniski FGN waxa la leeyahay nervouski ayaa koraya marka growth of central nervous system xaqi marka habdhiska dareensideesha ama xagga maskaxda lymphatic growth qofka sameynaya marka kuwan waxa weeye marka hore guud ahaan qofka uu koraya laakiin marka dambe waxa weeye inuu si specific qaasaan soo kori karay assessment of growth waxaan ku qiimeynaa markaan xagga eegaynay koritaanka waxaan isticmaalaa anthropometric measurements ka aan isticmaalaa height and weight ayaan isticmaalaa iyo muwaadi waxaana lagula socdo marka qofkii xaaladiisa koritaan weight xagga miisaanka dan ku heran at birth ilmaha yar markuu dhasho wuxuu ku dhashaa 3 to 3.5 kg wuxuu ku dhashaa waxa loo yaqaan 3 ilaa 3 kg iyo bar during inta lagu guri jiro the first year sanadka ugu horreeyay inta lagu guri jiro ilmaha koritaankiisa waxa aad u fiican first 4 months after bilood ee hore weight-ka 3 meelood 4 meelood 3 meelood waxa bisha waxa loo yaqaano ayuu helayaa waxa loo yaqaan 4 bilood hore markaa 4 bilood hore ilmihiira weight-kiisa uu ugu fiican expected weight-ka in calculate garan doona xisaabin doona waxaan arki doonaa 4 bilood ugu horeeya ilmaha yar bisha ugu horeysa ida physiological growth ayaa inta badan la yiraahdaa laakiin 3 bilood ugu horeysa ilmaha yar wuxuu markasta waxa ku darsanaya marka ugu yaraan marka laba so at 4 months weight-ka markaan eegna 6 kg baa soo darsan markaa bisha laba ku darsamay 2 kg bisha saddexaad marka loo yaqaan 2 kg bisha afraad 2 kg 6 kg ayuu helaa waxa loo yaqaan ilmaha double birth weight waxa loo yaqaan ilmihiira miisaanka uu ku dhashay intii in la eg inay ku kordho 4 bilood ugu horeysa intii in la eg in ay ku kordho marka next 4 months 4 bilood xigta weight-ka ilmihiira waxa ku kordhay marka half by month markaas waxa ku kordhay waxa loo yaqaan half ayaa ku kordhay marka ay ka dhigan tahay 1 kg hal kilo last month ilmihiira waxa ku kordhay waxa loo yaqaan waa half waa quarter by month beyond the first year wixii ka dambeeyay sanad koowaad weight is calculated miisaanka waxaan xisaabinaa weight-ka wuxuu la mid yahay age-ka in years inaga u qorayna marka ka hor age in month baan qori doonaa wayna soo socdaan waan arki doonaa age in years ilmihiira wax loo yaqaan waa 2 sano 2 ayaa 2 ku dhufanaysa 8 ayaad ku daraysaa marka saas lagu soo saaraa waan u tagi doonaa during the first 3 to 4 days ka 3-4 cisho horeysa of life ilmaha baby lose ilmihi wuxuu lose gareynaya ama luminaya 10% of body weight due to scant milk flow ilmihiira miisaankiisii ayuu wuxuu luminaya wax loo yaqaan 10% taasna waxa weeye inta hore hadda waxa weeye inta badan ilmihiira caanihi uu cabaya kadibna waxa dhacaysa wax loo yaqaan meconiumka ee urine ilmihiira meconiumka ama saxarada ku jirta caloosh waxa ay ka soo baxay waxa ka soo dhacay kaadi fara badan ilmihiira uu yeelanaya taasna waxa uu naqaanaa lose-kaasi physiological weight loss waa physiological ma aha pathology 10% oo labanaya waa xagga physiological waa shaqo ahaan jirka wuxuu luminaya waa caadi waa normal this weight is marka loss is regained by the 10th day miisaankan uu lumiyo wuxuu dib ilmihiira u helay waxa loo yaqaano 10 cisho yani caanahan dambartan hore ayaa keenaysa in waxyaalahan uu lumiyo markaa how to calculate expected weight sida loo xisaabiyo
markaasi miisaanka aan qofka aan ka rajeynayna inuu ilmihiira qofka noola keenay waan miisaanay kii innaga aan uga baahnayn markaa waa maxay atbaaf ilmihiira wuxuu ku dhashay kawa soo qaad 3.25 kg buu ku dhashay okay 3 bilood ilaa 12 bilood ilmaha markay yihiin age in month age-ka waxaan u xisaabinaynaa bil kawa soo qaad ilmihii yaraa wax loo yaqaan imisuu jiraa wuxuu jiraa 3 bilood hadda kawa soo qaad waa 3 bilood okay 3 months 3 bilood 3 bilood waxay u geysaa 9 3 loo geeyo maxay 12 12 waxaad u qaybisaa 2 ilmihi yaraa 12 loo qaybiyo 2 maxay waa 6 ilmihi yaraa 6 kiilo ayaan ka doonayna markaas inuu noqdo okay 1 to 6 years ilmaha markuu sanadka jiro ilaa 6 sano age in years age-ka ayaa da ahaan waxa loo qorayaa sanad ahaan markaas daysa sanad ahaan loo qoray ilmaha waa imisa jiro waa 2 sano 2 qor hadda marka 2 years qoro kii hore month bilaa loo qoranay kan laakiin waa maxay years ba loo qoranay sanado okay 2 times 2 laba lagu dhufto waa 4 waxa u geysaa wax loo yaqaano 8 u geey ilmihi yaraa markuu 2 sano yar waxaan ka sugaynaa 12 kiilo inuu noqdo 12 kiilo inuu noqdo okay 7 to 12 years 7 to 12 years ilmihi markuu yaro 10 sano ilaa 12 sano maxay sameeynaa age in years baan qoraynaa laakiin time ma ku dhufanayna kii hore maxaa wixii 6 sano ka yar ilaa 2 ku dhufanayna laakiin kuwan ilmaha 7 sano ilaa 12 ka jiro waxaan ku dhufanaynaa waxa loo yaqaan 7 waxayna ka jiraynaa 5 waxaynu u qaybinaynaa 2 this mathematical formulation waxa u baahnaa inta badan xisaabaadkan waxa u baahnaa inaan qaacidooyinkan ku soo saarno waxa loo yaqaan marka sawirad ama sharax inaan ku sameeyno laakiin anyway waxaan sameyn doonaa waxa loo yaqaan marka waxa loo yaqaan markay isku soo noqonaa ay ka shaqeyn doonaa inaga practical u fulin doona markaas ka soo qaad ilmihi waxa waa 5 sano 5 baan qornay 5 waxaan ku dhufanaynaa marka 7 5 times 7 waa 35 waa 35 waxaan ka jireen wax loo yaqaan 5 waa 30 laba oo qaybi wax loo yaqaan maxay waa 15 kg ilmaha marka 5 sano waxaan ka sugaynaa inuu noqdo 15 kiilo length xagga dheerarka markaan eegayno atbaaf ilmaha yar wuxuu ku dhashaa 50 cm ilmaha yar wuxuu ku dhashaa 50 cm xagga kale growth waxaan soo sheegnay wuxuu ku dhalinay 3.25 ay 3 to 3.5 was kanon okay at 6 months ilmaha markuu yahay 6 bilood dheerarkiisa waxaan ka sugaynaa inuu noqdo 68 cm ayaan ka sugaynaa at 1 year markuu yahay 35 cm at 2 years markuu ilmaha yar dheerarkiisa waxaan ka sugaynaa 87 cm after 2 years wixii ka dambeeyay 2 sano length is calculated dheerarka waxaan u xisaabinaa length dheerarka is equal to wuxuu leeyahay age in years da'dii inagu u qorina sanad ahaan markaas ka soo qaad ilmihi waa 3 sano 3 waxaan ku dhufanaynaa 5 oo imse 15 waxaan ku daraynaa waxa loo yaqaan waa maxay 8 ayaan ku daraynaa markaas 15 lagu daro ilmihi yar dheerkiisa 95 ayuu noqonaa ilmaha 3 jirka markaas 3 jirka ilmihi aha so at 4 years the baby is 100 at 4 years ilmaha markuu 4 sano yahay waxa weeye dheerkiisa waa 100 cm double at the birth length waxaan arkaynaa kii wuxuu ku dhashay waxa times 2 oranaynaa kii uu ku dhashay 50 buu ku dhashay 50 kaleeta markaas 100 under 2 years length is measured carruurta 2 sano ka yar under ka yar marka loo yaqaano 2 years 2 sano length marka dheerka is measured waxaan ku cabirnaa in supine position xaqi waxaan ku cabirnaa waxa loo yaqaan waa maxay supine position qofka ilmihiira chief markaas inagoo markaas waa maxay ilmihiira qadaadka madaxa dhulka u dhigayna markaas supine over 2 years wixii 2 sano ka weyn height ka dheerka is measured waxaan ku cabirnaa standing position ilmihiira inuu taagay okay waa maxay ilmaha yar wixii 2 sano ka yar maxay marka chiefka ugu cabirna sababta ugu cabirna wax kala maaha height-ka dheerarka markaan ka hadlayno 0.5 cm is less than length wuxuu ka yiri waxa loo yaqaano kan ayaa wuxuu ka yiri kan marka loo eego 0.5 due to sababta wax kala ma joint compression istani ilmihiira markuu istaagay lafihiisan iyo miisaankiisan ayaa xagga miskihii markaan ka eegayno iyo xagga jilbaha meelaha markaan ka eegayno space-ka banaana ayaa hadda marka ayada isku imanay kadibna 0.5 baa waxay ku dhexlumaysan lafahan culus ay soo cadaajinay ilmihiira space-kan banaan ayaa ku dhexlumay markaa
waa sababta marka iyada ilmi yara marka la seexiyo la leeyahay halkaa jilbaha qabo oo saa u geeji oo qofka kale xagga madaxa qabo xaggan qoorta oo ilmi yara loo kala jeeda loo qabanayo inta meelood ilmaha marka la miisaamay laga qabanayo dhammaan waxaan diidaynaa inay jointigaas inuu isu yimaado marka reasonka inta badan waa maxay waa due to joints marka waa kala goosyadii ayaa markuu ilmaha yar uu taagan yahay ayaa sababaysa markaa how to calculate expected height sida loo xisaabiyo dhererka aan qofka ka rajaynayna markaas intuu noqonayo marka waxay u kala saaraan expected height inaga dhererka ilmaha daa'isa noocaate intaan ka rajaynayn inuu noqon karayo midna waa maxay absolute height baa loo yaqaanaa waa intii uu kugu yimid inay normalka in kaleeto waxa ay tahay waa ina kaagii aad ka rajaynaysa marka hore la soo baxda marka absolute weight-ka uu qofku la yimaado iyo absolute height-ka qofku la yimid ee expected height marka waxaas insha Allah waan ka shaqeyn doonaa markaan soo nimano at birth ilmaha yar markuu dhasho 5 cm buu ku dhashaa 1 to 3 months ilmaha yar 3 cm each month hal bil ilaa iyo 3 bilood ilmaha mid kasta waxa ku kordhay 3 cm marka 3 bilood hore waxaan ka rajaynaa ilmaha inay ku kordhaan 9 cm 9 cm 4 ilaa 6 bilood bil kasta waxa ku kordhay 2 cm halkaasna inagana 6 noogu qor 6 okay 7 to 12 months waxa ku kordhay 1.5 cm each markasta waxa ku kordhay waxa loo yaqaano waxa ku kordhayo 1.5 ta ku kordhay 1.5 ayaa ku kordhay marka kana waxa u naqaana waa 4.5 9 waxa u geeysaa waxa loo yaqaan 6 oo imisa waxa loo yaqaan 15 waxa ku dartaa waxa loo yaqaan 4.5 marka 15 ku darto maxay waa 17 waa 19.5 ayaa marka iyada ilmaha sanadka intii uu dhashay kii hore guusay 19.5 waxa uu geystaa 50 gaaga hore marka waa 69.5 ilmihi marka sanad jirka markuu yahay waxaan 1 year ka markuu yahay ilmaha maxaan ka rajaynaa waxa loo yaqaano inuu 75 u noqdo okay waan soo saari doonaa inta calculation kan soo saari doonaa marka 1 to 2 years 1 cm ayaa ku kordhay wixii ka dambeeyay sanad ilaa hal sano 2 sano ilaa 12 bilood waxaan ku soo saarnay age in years lagu dhufto 6 loo geeyay 70 iyo 7 marka ilmaha 2 sano ilaa 12 sano ka soo qaadimay waa 3 sano waxaad ku dhufataa 6 waa 18 waxa geeysa 77 insha Allah marka saaseen ku soo saari doonaa way halka ilmihi hadda waxa loo sameeyaa supine position ba ilmihi yara loo cabiraya waxa la qabto aragta xagga dhagaha iyo qoorta ayaa la qabto la toosinaya xagga kale wuxuu qofku waa positionada qofka laga in loo baahan in laga qabto marka xaggii wuxuu hayaa lugihii xagga kale la qabanay waa xagga jilbihii inay qabanaan doonay gacmihiisa waa ilmihi inay flat ay ahaadaan waa in ilmihi marka toos uu ku soo adi indhaha uu soo eegay marka okay miisaanku inuu xagga dhagihiisa uu la sameey marka positionada dhan la qabanayo waxay noo saamaxay inuu miisaanka joints-ki ay sheegeen inuu san naga lumin ilmihi markuu yahay asan neonatal-kii waa sida marka joints flat-kii loo sameeyay kadibna loo cabiray head circumference ilmihi yara markaan eegayna wareegga madaxiisa at birth ilmaha yara wuxuu ku dhashaa 35 cm laakiin 3 to 3.5 cm baa la yiraahdaa at 6 months ilmihi yara madaxiisa wuxuu noqonayaa 42 cm head circumference at 1 year markuu yahay 45 cm at 2 year markuu yahay 47.5 cm at 12 years ilmihi yara markuu yahay 52 cm markuu 1 year ka u yahay maximum rate of increase xaddiga ugu sareeya in head circumference madaxa kordhi karay is during the first year waa sanadka ugu horeeya buu xaddiga u farabaday ilmaha koritaanka madaxiisa u sameeyo especially qaas ahaan first 6 months 6 bilood oo ugu horeysa due to brain growth sababtuna waa maxay maskaxdiisa ilmaha waxa kordhaysa maskaxda ayaa kordhaysa markaa maskaxdiisa ayaa kordhaysa hadda waxaa aragtaa from 35 buu ka yimid 42 buu maraya 42 ilmihi yara halkaasi maxaa ku kordhay marka aad eegto 6 bilood oo ugu horeysa koritaanka u sameeyay waa imisa dumalaynataa markaa okay halkaas waxaa kusoo dartaa waxa loo yaqaan 7 almost 7 ilaa 10 boost you sameeyay way sanad ilaa iyo waxa loo yaqaan 6 bilood ilaa sanad wuxuu sameeyay waxa loo yaqaan 3 sanad ilaa 2 sano wuxuu sameeyay growth-ka waxa 2.5 marka koritaanka ugu faraha badan ilmaha wuxuu sameeyay 6 bilood ugu horeysa sababtuna waa maxay waxa weeye maskaxda koritaanka sameynaysa head circumference
wareega markaan eegayna madaxa inta badan aan chest circumference-ga waxaan eegaynaa kan waxa loo yaqaano chest ama laabta loo yaqaano ratio waan isbarbar dhignaa at birth ilmaha yar markuu dhasho hip circumference-ga ayaa wuxuu ka weyn yahay chest circumference-ga waxayna kala weyihiin hal ratio one ratio ayuu ka weyn yahay 6 bilood markuu yahay hip circumference-ga iyo chest circumference-ga waa equal way isla egyihiin waa isku mid after 6 months 6 bilood wixii ka weyn chest circumference-ga waxaa loogu baahan yahay inuu ka weynaado hip circumference-ga inuu ka weynaado hal waa in xaggan laabta iyo xaggan marka ayna u naqaan sakaarkan waa inuu weynaadaa markaas yada marka loo eego xagga madaxa beyond 6 months hadduu head circumference-ga uu sii weynaado wuxuu kuu sheegayaa laba shay ma malnutrition ma jira nafaqa darro ama waxaa jira hydrocephalus ilmihiina maskaxda ama ayaa biyo kaga furan yihiin marka ayada ama ha xanibnaado waxaa loo yaqaanaa hydrocephalaska laba qaab oo ku dhaca communicating non communicating baa loo yaqaanaa mid yacni communicating baa jiro dariiqii wuu furan yahay laakiinse absorptionki ayaan jirin fluidiska maalintii lasoo saaray maalinta 450 milliliter ayaa lasoo saaraa wax loo yaqaanaa CS fluidka cerebrospinal fluid ka haddii absorption uu ku sameeyo infections waxyaala noocaas meningitis waxyaala noocaas lamid baa keen marna waxaa weeye waa lasoo saaraya absorptionku dhacaya laakiin uu dhici lahaa laakiin cerebral aqueduct marka dariiqadii uu soo maray third ventricular ama fourth meelahaasa xiran waxaa xiri karaya ama fiix baa kasoo baxday ama wuu adkaaday ama congenital anomaly wuxuu doon ha ahaado marka waxaa oranaysaa 6 bilood wixii ka weyn haddii madaxa still uu sii weyn yahay oo sakaarka uu yar yahay ilmihii madax weyn yahay waxaa ka fikirtaa ma hydrocephalus baa jira ama malnutrition nafaqa darro ayaa jirta head circumference-ga ayaan halkan cabiraynaa okay this is chest circumference-ga okay mid arm circumference mid arm circumference and mid upper arm circumference ilmihira waxaan ka qaadnaa muwak wax loo yaqaan halka cududa ay ilmihira ka cabirnaa markaa in a baby 1 year to 4 years ilmaha markaa jiro waxa loo yaqaano sanadka ilaa 4 sano muwagiisa haddii 14 uu ka weynaada centimeter waa normal waa good u fiican in subclinical malnutrition haddii uu 12 14 inta u dhaxaysa u yahay waxaa jirta nafaqa darro laakiin xoogaa way qarsoonta in clinical malnutrition ayaa haddii uu 12 centimeter oo ka yaraado nafaqa darro ayaa jirta markaa qofka ama maam ha ku noqdo ama sam ha ku gal ku doono ha ahaado value marka qiimo early indicator of malnutrition kan inta badan waxa inoo tilmaamay nafaqa darro measures waxa cabirana the muscle bulk and is not affected by waxa cabirana marka wax loo yaqaan cududii waxaan cabirana waxa loo yaqaan muruqi marka iyada ayaa cabirana marka awoodiisa marka kobcitaankiisa aan eegana marka iyada muruqi ayaa cabirana kaasoo inta badan aysan saameyn wax idiima barra uusan ku jirin waliba labada gacmood marka inay labada cudud waxaan qofka ka cabirnaa oo fiican oo standard ah waxa loo yaqaan ka bidix gacanta bidix waayo gacanta midig waxaan u naqaanaa muscle bulkeedu ka weeyo qofku ku shaqeynaya inta badan waxa uu ka weyn ku shaqeynaya waxa ka inta badan ka cabir skin fold thickness kan inta badan eegna body fat can be estimated inta badan waxay cabiri karnaa ama qiyaasi karnaa waxa loo yaqaan dufanka ama baruurta jirka measuring skin fold thickness inagoo cabirayna inta badan left marka triceps ka kore ama left scapular regions inta badan waxay ka cabirnaa waxa loo yaqaan xagga bidix waxay cabirnaa marka waxa loo yaqaan cududan xagga hoose ayaan eegnaa biceps and triceps balira triceps waa kuwan hoose ayaan cabirayna muruqyadaas hoose ayaan eegnaa xagga cududan markaan eegnaa ama xagga dambe ee garabka lafta xagga hoose ayaan ka eegi doonaa insha Allah kan waxaan naqaan marka soo muwaagi the arm span and height relationship inta badan arm span ba eegnaa gacmaha marka saa loo kala bixiyo qofka labada gacmood markuu saa u kala bixiyo dheerarkiisa iyo dheerarka madaxa ilaa iyo waxa loo yaqaan lugta midaan dheerarkan saa u cabiro qofka dheerarkiisa sidiisa uu yahay iyo markuu qofka gacmaha saa u kala bixiyo inta badan waxa la yiraahdaa way isleeyihiin baa dadka qaar la yiraahdaa okay span is shorter than height span kan loo yaqaan gacmaha marka saa u kala bixino wuxuu ka yar yahay xagga dheerarka 3 cm qofka ilmaha sanadka ilaa iyo 7 jirka ah ilmaha sanadka ilaa 7 jirka ah markii labadiisa gacmood saa u kala bixiyo bal ahaan markii saa u soo cabirno waxaan eegi karnaa waxa loo yaqaan waxa weeye 3 cm buu ka yari ilmaha yar inta badan marka waxbarashadooda ay eegeen waxbarasho inay gaaraan waxa la yiraahdaa dhigtaada soo taaba
taas waxay sheegaysaa gacmihiisa inuu koritaankiisa weli uu gaabay. span equals height marka 8 sano ilaa 12 sano la yiraahdo way isla egyihiin marka hadduu qofka saa isu kala bixiyo gacmaha saa u kala bixiyo iyo haddii qofka wax loo yaqaano uu dheerarkiisa saa straight u istaago isla egyihiin 8 jirka ilaa 12 jirka. span is exceed in height spanka ayaa wuxuu ka dheeraada wax loo yaqaano ballacan gacmaha markaan eegayno height 4 cm in male-ka waxa loo yaqaano ragga aan female-ka wax loo yaqaano 1 cm marka 14 jirka ay yihiin. insha Allah maanta halkaas aynu casharkeena ku joojin doonaa wixii su'aalo insha Allah soo weydiin doontaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.